waa 89 maalmood tan iyo markii dunidu burtay. Inta badan dadka waxa baabiiyay makhluuqaad aan indho lahayn, kuwaasoo ugaarsanaya wax kasta oo sameeya shanqar. Hal cod oo yar wuxuu ka dhigan yahay dhimashadaada. qoys yar ayaa si aamusan ugu dhex socday magaalo cidla, xitaa waxay iska saareen kabahoodii si aysan cod u samaynin. wiilka ugu yar ayaa dukaanka ka soo qaadanaya diyaaradda carruurta ku ciyaarto, laakiin aabbihi ayaa si degdeg uga qaadaya maxaa yeelay hal khalada wuxuu dili karaa dhammaantood. wiilka yarka aad ayuu uga xumaanaya in laga qaatay alaabtiisii, laakiin markii ay dukaanka ka baxaan, walaashii ayaa si qarsoodiha ugu soo celinaysa alaabtiisii, iyadoo aan ogeyn sidoo kale inuu batarigi qaatay. iyagoo maraya buunta dheer si lama filaan ah, dhawaaqa diyaaradda ayaa hawada qabsanaysa. qoyska oo dhan way istaagayaan argagax awgiis. aabbuhu si waali ah ayuu ugu ordayaa wiilka yar, laakiin waa goor dambe makhluuqaadka ayaa si xawaare leh uga soo baxaya keynta. ilbiriqsi gudaheedna wuxuu dilayaa cunugii yaraa. in ka badan sanad kadib, qoysku weli kama aysan soo kaban dhimashada cunugii yaraa. gaar ahaan gabadha waxay nafteeda ku eedaynaysaa wixii ku dhacay walaalkeed. waxaa xaaladda uga sii daray inay dhagool tahay, aaladda maqalkeeduna aysan si fiican ugu shaqaynayn. dhanka kale, hooyadu waxay ku dhowdahay marxaladdii ugu dambaysay ee uurka, arrintaas oo xaaladda kasii dhigaysa mid aad uga sii khatar badan. aabaha ayaa maalin kasta isku dayaya inuu helo dad kale oo nool, isagoo idaacadda ku diraya fariimo, laakiin wax jawaaba ma helayo. maalin kasta qoysku waxay ku nool yihiin cabsi iyo aamusnaan. habeenkii carruurta iyagoo ciyaaraya si lama filaan ah ayay gacanta ugu dhufanayaan faynuusta, taasi oo samaynaysa cod yar. aabbuhu si dhaqso ah ayuu dabka u daminaya. qoyskao dhanna way wada istaagayaan cabsi darteed, waxayna sugayaan in makhluuqaadku imaado, laakiin nasiib wanaag waxuma dhacayaan. maalintii xigtay, aabaha iyo wiilka ayaa u baxaya bannaanka si uu wiilka u baro sida loo badbaado. gabadhu waxay doonaysaa inay raacdo, laakiin aabaha ayaa diidaya. taasi ayaana sii dhaawacaysa dareenkeeda, maadaama ay hore iskugu eedeynaysay dhimashada walaalkeed. markii ay baxaan, aabaha iyo wiilka waxay imaanayaan webi, halkaas oo aabuhu ugu sharaxayo inuu webigu qarinayo dhawaaqyada yararka si uusan cunugga u baqin. wuxuu u sheegayaa inay dhawaaqyo waaweyn samayn karaan haddii ay u dhow yihiin waxyaaba ka qaylo badan. markii u horraysay muddo dheer, waxay awoodaan inay si caadi ah u wada sheekaystaan, xitaa iyagoo qaylinaya. wiilka ayaa markaas aabihiis u sheegaya arrin murugo leh. walaashiis weli waxay nafteeda ku eedeynaysaa dhimashada walaalkeed, waxayna aaminsan tahay in aabaheed uusan weli cafin, halka gabadhu ay booqanayso goobtii walaalkeed uu ku dhintay. kadib labadooda waxay kusoo laabanayaan keynta, waxayna kusoo baxayaan guri duug ah. iyagoo ag maraya, waxay si lama filaana arkayaan nin oday ah markaasi istaageen. agtiisa waxaa jirta haweeney dhimatay. aabbuhu wuxuu dareemayaa in ninku rabo inuu qayliyo, wuxuuna ka codsanayaa inuu aamuso, laakiin ninka ayaa haddana si xoog leh u qaylinaya. aabbuhu wuxuu qabanaya wiilka, wayna dhuumanayaan. kadib mid ka mid a makhluuqaadka ayaa odayga dilaya. dhanka kale, hooyada ayaa guriga ku keligeed ah. markii si lama filaana fooli u qabato, iyadoo xanuunka la tacaalaysa ayay isku dayaysaa inay gaarto qaybta hoose ee guriga, laakiin si lama filaana waxay ku istaagaysaa musbaar, waxaana ka dhacaya sawir ay wadatay. codkiisuna wuxuu soo jeedinayaa makhluuqaadka. waxay isku dayaysaa inay u adkaysato xanuunka, waxayna beddelaysaa midabka nalka dibadda si ay kuwa kale u ogaadaan waxa dhacaya. inta ay isku diyaarinaysay inay u baxdo bannaanka, mid ka mid a makhluuqaadka ayaa guriga gudihiisa ka soo muuqanaya. way ka dhuumanaysaa markii ay aragto saacad. waxay ku xiraysaa wakhti si codkeedu u mashquuliyo bahalka. qorshuhu uu shaqaynayaa, bahalku wuxuu weerarayaa saacadda. taasi waxay hooyada siinaysaa fursad ay ku baxsato. nasiib darro, waxaa jira mid labaad oo guriga hortiisa jooga. dhanka kale, aabaha iyo wiilka waxay imaanayaan beerta. markii ay arkaan nalka gaduudka ah, waxay dareemayaan xaalad xun inay hooyadu ku jirto. wuxuu farayaa wiilka inuu rido baaruudda ciidda si ay u mashquuliyaan makhluuqaadka oo ay u caawiyaan hooyada. guriga gudihiisa waxay jirtaa tuubada maydhashada, iyadoo diyaar u ah inay dhasho markii ay si lama filaan ah u maqlayso mid ka mid ah makhluuqaadka oo gudaha ka soo muuqanaya. dhanka kale, wiilku wuxuu shidayaa baaruudda. aabbuhu wuxuu diirinayaa qorigiisa. hooyadu waxay u adkaysan waayeysaa xanuunka foosha. aad ayay u qaylinaysaa, waxaana la kulmaya qayladeeda baaruudda qaraxeeda, taasi oo ka qaylo weyn hooyada qayladeeda. markii ay baaruudda ku qaraxdo beerta dusheeda, aabbuhu wuxuu u ordayaa dhanka guriga. gabadhuna waxay arkaysaa baaruudda, waxayna u ordaysaa dhanka beerta. guriga gudihiisa, aabbuhu wuxuu imaanayaa musqusha, wuxuuna arkayaa dhiig meel walba yaalla. wuxuu ka baqayaa in xaaskiisu dhimatay, laakiin si lama filaana waxay ka soo baxaysaa meel ay ku dhuumanaysay, iyadoo ilmihii dhashay gacanta ku sidata. aabbuhu markiiba hooyada iyo ilmaha wuxuu geenayaa qaybta hoose ee guriga, meel sharqanta aan si fiican looga maqlin. dhanka kale, wiilkii oo dhex socda beerta wuxuu maqlayaa sharqan. mid ka mid ah makhluuqaadka ayaa eryanaya, isagoo ordaya. wuxuu si lama filaana ugu dhacayaa taayir weyn. guriga aanu ku soo noqonno, ilmuhu wuxuu bilaabayaa inuu ooyo, taasoo soo jeedanaysa makhluuqaadka. wuxuu burburinayaa wax kasta oo bannaanka ah. aabbuhu wuxuu ilmaha gelinayaa sariirta gaarka ah, taasoo yaraynaysa oohintiisa. beerta dhexdeeda, gabadhu waxay arkaysaa iftiin ka baxaya dhirta dhexdeeda, halka makhluuqaadku daba taagan yahay iyada, laakiin iyadu ma aragto waxaas. markii uu u soo dhowaado, waxaa ku dhigaya dhawqa yar ee ka soo baxaya aaladeeda maqalka, kaasi oo dhibaya makhluuqaadka iyo gabadha. kadib makhluuqaadku wuxuu bilaabayaa inuu ka cararo meesha. waa markii ugu horraysay ee aan aragno bahalka daciifnimadiisa, laakiin iyagu ma oga. dhanka kale, hooyadu waxay ka codsanaysaa aabaha inuu u ballanqaado inuu ilaalin doono carruurta kale. beerta dhexdeeda, gabadhu waxay raacaysaa iftiinka, waxayna helaysaa walaalkeed. aabbuhu wuu baxaya si uu u raadiyo carruurta, laakiin ma oga in qaybta hoose ee guriga ay biyo buuxiyeen, taasi oo laga yaaba in godka hooyada iyo ilmuhu ku jiraan uu buuxsamo. carruurtu waxay saaran yihiin dusha sare ee silada, iyagoo shidaya dab si ay u ogeysiiyaan aabahood meesha ay joogaan. si kastaba ahaatee, waxaa ka dhammaanaya gaaskii ay dabka ku shidayeen. dabku markuu sidaas u damo, aabbuhu wuxuu ka raadinayaa kaamirooyinka, laakiin waxba ma arkaayo. dhulka hoostiisa, hooyadu waxay soo toosaysaa iyadoo meesha ay biyo soo galeen. waxay isla markiiba arkaysaa makhluuqa oo kula jira guriga. wuxuu ku dhex quusayaa biyaha, laakiin markii ay ilmaha qaadayso ayuu haddana soo baxayaa. waxay isku dayaysaa inay ka dhumato, halka makhluuqaadku marka dambeysa u soo dhowaanaya, iyadoo khatar ku jirta dusha sare ee silada. si lama filaan, albaabka ayaa la jabaya wiilka, wuxuuna ku dhacaya gudaha, samaynaya dhawaq wax walba maqli karaan. laakiin dhawaqaas wuxuu caawinaya hooyada. bahalku uu ka soo tegayaa, isagoo soo aadaya dhawaqu meeshu ka yeeray.
gabadhu waxay ogaanaysaa haruurku inuu dejin doono walaalkeed way isku tuuraysaa iyadoo caawinaysa laakiin iyadaa quusaysa waxaana badbaadinaya walaalkeed isla markiiba makhluuqaadka ayaa soo warariyay waxay ka hoosgelayaan saqafka intay ka dhumanayeen aaladda maqalka ee gabadha ayaa haddana dhawaq samaynaysa taasi oo haddana makhluuqaadka uu dhibsanayo uuna ka cararaya meesha waa markii labaad oo ay ka badbaadayso gabadha makhluuqaadka carruurtu waxay ku guulaysanayaan inay kasoo baxaan silada guriga hooyadu waxay u baxaysaa inay hubiso waxa ka dhacaya bannaanka inta aabuhu u ordaya dhanka silada wuxuu la kulmayaa carruurtiisa laakiin waxay maqlayaan makhluuqaadka u dhow markaasi u sheegaya inay u ordaan dhanka gaariga aabuhu wuxuu isku dayaya inuu la dagaalamo laakiin bahalka awoodiisa maaha mid bini aadam u barbardhigi karo wiilka ayaa qaylinaya halka hooyadu ka daawanaysa wax kasta shaashadaha inta uusan weerarin bahalku gabadha aaladeeda dhegta ayaa haddana qaylinaysa taasi oo aad u dhibaysa gabadha iyo bahalka laakiin waxaa iyadu ma oga oo iska saaraysa iyadoo duminaysa isla markaa makhluuqu wuxuu bilaabaya inuu ku jajabiyo gaariga nasiib wanaag aabuhu weli waa nool yahay markaas ayuu aabuhu samaynaya go-aankii ugu dambeeyey wuxuu luuqadda gacanta ugu sheegaya gabadhiisa inuu mar walba jeclaa wuxuuna bilaabaya inuu xoog u qaydiyo siduu carruurta uga fogeeyo bahalku isagoo maqlaya codka aabbaha wuxuu dilayaa aabbaha halka wiilku gaariga kaxaynayo carruurtu waxay la kulmayaan hooyadood afartooda waxay u cararayaan qaybta hoose ee guriga laakiin makhluuq ayaa haddana soo raacaya gabadha waxay arkaysaa waxa aabbaheed ka shaqaynaya oo ay ku jiraan aalado badan oo maqal ah oo uu isku dayay inuu u hagaajiyo iyada si lama filaan ah halka wuxuu bilaabaya inuu damo bahalka ayaa imaanaya isagoo si tartiib ugu soo dhowaanaya iyaga hooyadu waxay ku haysaa qori dhammaan qalabka elektroniga ah ayaa cillad gelaya oo dhibaya bahalka wuxuu bilaabaya inuu burburiyo gabadhu waxay eegaysaa gidaarka taasi oo warqado baaritaan ku dhegan yihiin aabuhu intuusa dhiban ka hor wuxuu raadinayay daciifnimada ama bahalka halka laga weerari karo waxay garanaysaa in aaladda sida maqalka oo kale ay yihiin daciifnimada makhluuqa waxayna shidaysaa teeda ka hor inta uu makhluuq soo gaarin wuxuu bilaabayaa inuu dhacdhaco oo jaanis waxayna saaraysaa aaladeeda sameecadda waxayna ka dhigaysaa bahalka mid aan waxba qaban karin uu dhacaya ugu dambeyn hooyadu waxay la yaabaysaa waxa ay samaynaysa gabadheed ilbiriqsi kadib bahalku uu soo kacaya wuxuuna bilaabaya inuu kusoo boodo laakiin hooyada waxay afkaga gelinaysaa xabad wayna ku guulaysanaya inay halka ku jiraan nalku wuxuu bilaabayaa inay haddana damaan waxaana shaashadda ka arkaynaa makhluuqaad badan oo kusoo ordaya dhankooda hadda waxay ogaadeen daciifnimada makhluuqaadka waxayna bilaabayaan inay dib u dagaalamaan markaas ay gabadhu kor u qaadaysaa codka sameecadeeda halka hooyadu ay diyaarinayso qorigeeda